waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 23 ee ka mid ah suuratu an-naml waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 23 ee ka mid ah suuratu an-naml waxaynu ku dhex jirnay qisadii hudhudka oo u soo waramaya nebi sulaymaan calayhi salaam qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi isagoo ka warramaya hududkii innii wajadtu imra'a anugu waxaan helay buu uhi hududku ruux dumar ah tamlikuhum dadka meeshaa jooga iska leh wa uutiyat min kulli shayin wax walbana waa la siiyey walahaa carshun cadiim sariir weynna way leedahay wajadtuhaa wa qowmaha iyada iyo qoladeediiba waan helay yasjuduuna lishams iyagoo qoraxda u sujuudaya min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum shaydaankaa u qurxiya camaladoodaa xun fasadahum can isabiil dariiqii xaq ahaana wuu ka hor joogsaday fahum laa yahtaduuna iyagu kuma hanuunayaan anlaa yasjuduu ay an yasjuduu lilaah inay ilaahay u sujuudaan kuma hanuunayaan alladii ilaahaasoo yukhriju lkhaba shayga qarsoon soo saarayay fi samaawaati waalardi samooyinkiiyo dhulka ku qarsoon wayaclamu wuxuu ilaahay ogaanayaa maa tukhfuuna wamaa tuclinuun waxaa qarsanaysaan iyo waxa muujisanaysaan allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane rabu lcarshi alcadiim carshiga weyn rabbiga iskale weeye qaala markaa nebi sulaymaan baa u jawaabay hududkii oo ku yidhi sananduru waxaanu eegi doonaa asadaqta inaad run sheegtay am kunta min alkaadibiin iyo inaad ka mid tahay kuwa beenta sheegaya idhab bikitaabii haada bal hadda warqadaydan qaad fa alqih ilayhim qolyaha aad sheegtay ku tuur uma tawalla canhum dhinac uga joogso fandur maadaa yarjicuun kadibna u fiirso oo eeg waxay isugu jawaabayaan qaalat markaa waxay tidhi kolkii qoraalkii sulaymaan gaadhay boqoraddii saba yaa ayuha almala dadkiinan madaxda ahow innii ulqiya aniga waxa laygu soo tuuraan hadda helay kitaabun kariim qoraal wanaagsan ama warqadii socoto oo qiimo badan innahu qoraalkani min sulaymaan warqadani nebi sulaymaan bay ka socotaa wa innahu arrinku waxau yahay bismi illaahi araxmaani araxiim ilaaha sifooyinka ale baan kaashanayaa anlaa tacluu calaya aniga ha igu kibrina wa'tuunii muslimiin ii yimaadda idinkoo allahu hoggaansan oo muslimiina waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 32 ee ka mida suuradda la yidhaahdo suuratu naml waa qisadii nebi sulaymaan calayhi salaam iyo fariimihii ay isweydaarsanayeen isaga iyo boqoraddii reer saba oo culamaau tafsiir magaceeda balqiis ay ku sheegaan warqaddii nebi sulaymaan u soo diray markii akhriday qaalat waxay tidhi yaa ayuha almala qolyihiinan madaxda ahow aftuunii fii amri arrinkayga iga jawaaba fatwo isiiya cilmi maa kuntu qaadicatan amran arrinka ma goosanayo arrin ma goosanayo oo idinkala go'i maayo xataa tashhaduun jeeroo goobjoogu noqotaan qaaluu waxay idhaha naxnu uluu quwa annagu waxaanu nahay dad awood u saaxiiba wa uluu ba'sin shadiid balaayo daran iyo dagaalna waa naqaan waalamru ilayk taladana adiga ayaa iska leh fandurii maadaa ta'muriin bal ka fiirsa waxaadna fari lahayd qaalat waxay tidhi ina almuluuka dadka boqorrada ahi idaa dakhaluu qarya markay magaalo soo galaan afsaduuhaa way baabi'iyaan ama way kharibaan wajacaluu waxay ka yeelaan acizata ahliha dadka halkaa degan kuwa casiisiinta sharafta lana adilla way dullaystaan wakadaalika yafcaluun sidaasay sameeyaana ogaada wa innii mursilatun ilayhim anigu waxaan u dirayaa sulaymaan iyo colkiisa bihadiyatin hadiyad baan u dirayaa fa naadiratun waxaan eegi doonaa bima yarjicu lmursaluun rasuulladaa la dirayaa waxa ay la soo noqdaan hadyaddii bay dirtay markaa falamaa jaaa sulaymaan
nebi sulaymaan marka uu soo gaadhay kii hadyadda siday qaala markaa nebi sulaymaan wuxuu yidhi atumidduunanii bimaal ma xoolaaba igu xoojiseenoo isiiseen famaa aataaniya allaahu khayr wuxuu ilaahay siiyey baa ka wanaag badan mimaa aataakum wuxuu idin siiyey bal antum idinku bihadiyatikum tafraxuun hadiyaddiinnan iyo xoolihiinnanaaba ku faraxsantihin oo la dhacsantihin irjic ilayhim orod ninkan hadiyadda sidow hadiyadaada qaado oo ku noqo gaaladii falana'tiyannahum bijunuud waxaanu ula iman doonaanu isla dul taagi ciidanbo laa qibala lahum biha aanay qaabili karayn oo aanay ka hor iman karaynin walanukhrijannahum minha magaaladay degan yihiin iyo yaman baanu ka saari adillatan iyagoo dullaysan wahum saakiruun iyaga oo aada u dullaysan qaala markaa wuxuu yihi nebi sulaymaan yaa ayuha almalaw dadkiinan madaxda ahow ayukum ya'tiinii bicarshiha kiineebaa ii keenaya gabadhaa boqoradda ah sariirteedii qabla an ya'tuunii muslimiin intaanay ii imanin ka hor iyagoo muslimiina waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 39 ee ka mida suuradda la yidhaahdo suuratu الnaml qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo ka warramaya nebi sulaymaan oo la hadlaya colkiisa qaala cifriitu min aljin ninkii xoogga badnaa ee jinka ahaa ayaa nebi sulaymaan u jawaabay oo yidhi ana aatiika bihi anigaaba carshigaa iyo sariirtaa boqoradda kuu keeni qabla an taquuma min maqaamik intaanad ka kicin halkanaad gelinka hore fadhiisato wa innii calayhi laqawiyun amiin aniguna bahalkaa carshi sariirtaa inaan keeno awood baan u leeya waana laygu aaminaya qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab waxa uu yidhi kii hayay cilmi kitaabka ka haystay ana aatiika bihi anigaaba carshigaa iyo sariirtaa keeni qabla an yartadda ilayka intaanu kugu soo noqoninba darfuka xiribtaa isha kala qaado intaanad soo celin baan keeni wuu u diray kiibuu u diroo ku guuraystay falamaa ra'aahu markii uu nebi sulaymaan arkay carshigii mustaqiran cindahu isagoo agtiisa yaallada qaala wuxuu idhi haadaa min fadli rabbi arrintani waa dheeraadkii rabbigayga iyo deeqdiisa liyabluwanii si uu ii imtixaano a ashkuru am akfur inaan mahadnaqayo inaan gaaloobo labadaasuu eegayaa waman shakara qofka mahadnaqaa fa inamaa yashkuru linafsi naftiisuunbuu u mahadnaqayaa ilaahay waxba uma kordhin waman kafara ka gaaloobaana fa ina rabbii haniyun kariim rabbigaygu waa mid ka maarmay oo deeqdiisa iyo wanaaggiisu badan yahay qaala markaa nebi sulaymaan wuxuu ihi nakiruu lahaa carshaha balada sariirteedan u bedela oo wax ka isbedel ku sameeya intaana imanin nandur aynu eegna tijaaba la samaynayaae atahtadii inay garato inay sariirteedii tahay am takuunu iyo inay ka mid noqoto min aladiina laa yahtaduun kuwa aan ku hanuunin aan garanin sariirtan falamaa jaaءat markii ay timi sariirtiina wax laga sii bedelay qiila waxa lagu yihi ahaakadaa carshuki sariirtaadu ma sidan ay ahayd qaalat waxay tihi kaأnnahu huwa kan waxaa la moodaa inuu kaygii oo kale yahay wa uutiina alcilma min qabliha nebi sulaymaan wuxuu yihi cilmibaa ilaahay una siiyey cilmiguuna siiyey iyada ka hor intaanay noo imaninba wa kunnaa muslimiin dad ilaahay u hoggaansanna waanu ahay wasadahaa wuxuu ka hor joogsaday ruuxaa dumarkaee boqoradda ahayd maa kaanat tacbudu wixii ay caabudaysa min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa qorax caabudkii iyo dabkii wuu ka joojiyey innahaa kaanat min qowmi kaafiriin waxay ka mid ahayd qolyo gaalo ah qiila markaa waxaa lagu yidhi iyadoo tijaabo kale laga qaadayo udkhuli sarx bal fooqan gal cimaaraddan soo galbaalay waa halkii lagu soo dhoweynayay falamaa ra'atu markii ay aragtay dariiqay maraysay xasibatu loja waxay u maraysay iliilad biyo ah wakashafad can saaqayhaa labadeedii dhudhunbay marada kor uga qaado qaala markaa nebigani wuxuu ku uhi innahu kanaad marada ka faydatay sarxun waa fooq mumaradun lagu xardhay oo lagu sallaxay min qawaariira quraarado quraaradaad baa dul maraysaaye biyoma dhex maraysa qaalat markaasaa waxay tihi rabbi yaa rabbii rabbigaygiyow innii dalamtu nafsi naftaydii waa ku gardarooday markaan gaalnimada sameeyey wa aslamtu maca sulaymaan wa aslamtu waan hoggaansamay maca sulaymaan anigoo sulaymaan la socdo wehelinaya lilaahi baan isu dhiibay rabbi alcaalamiin caalamiintao dhan rabbiga oo halkaasay ku islaamtay